asalaamu calaykum asxaabta ku xiran janaalka waxaan rajaynayaa qof kastoo muuqaalkan daawanaya inuu kusoo gaaray asigoo caafimaad qaba anna sidoo kale anigoo caafimaad qaba ayaan idiin soo gudbinaya muuqaalkan intaasi kadib ku dhowaad muddo 2 bilood oo aan ka maqnaa janaalka hadda ayaan dib u soo laabtay waxaan rajaynayaa ugu yaraan isbuucii inaan soo geliyo 2 muuqaal ama 1 muuqaal sidoo kale haddii aad jeceshahay inaad daawatid muuqaaladan oo kale oo gaagaaban waxaad ka heli kartaa bartayda tiktoka linkiga waxaan ku dhigaya qaybta descriptionka aan u gudagalno muuqaalka qisadeeni maanta waxay ku saabsan tahay gabadhan lagu magacaabo Dahlia sanadii 2008 Dahlia waxay ku sugnayd dalka Mareykanka waxay ka shaqayn jirtay iibinta iyo kireynta guryaha intay ku guda jirtay shaqadeedii waxay isbarteen wiilkan oo lagu magacaabo Michael DiPolito kadib waxaa dhaxmaray xiriir ugu dambeyntiina waa isguursadeen dhanka kale Dahlia asal ahaan waxay ka soo jeedaa dalka Mexico dadka qaraabada ah ama eeda ka agdhow waa dad u badan qolo gaangisa markay isguursadeen Michael waxa ay bilowday inay ninkeeda ugu hanjabto inay dili doonto haddii uusan ku saxiixin wixii hanti uu leeyahay taasoo ugu dambeyn maalkay ku dhalisay inuu u saxiixo wixii hanti uu leeyahay Dahlia DiPolito wixii markaasi ka dambeeyay Dahlia DiPolito waxay go'aan ku gaartay gebi ahaanba inay disho ninkeeda ama ay ka takhalusto waxay xiriir la sameysay wiilkan oo lagu magacaabo Maxamed Xijaaz oo ah ex-keedii hore waxay ka dalbatay inuu u soo raadiyo qof u dila ninkeeda maxamed markay Dahlia la soo xiriirtay waxa uu wacay booliiska waxa uu sheegay inay la soo xiriirtay Dahlia kana dalbatay inuu u soo raadiyo qof u dila ninkeeda booliiskuna arrinkaas ay ka hortagaan booliisku hadalka maxamed waa ay rumaysteen laakiin ma hayaan cadeymo ku filan oo ay ku soo xiri karaan Dahlia DiPolito oo cadeynaysa inay rabto inay ninkeeda disho wixii markaasi ka dambeeyay maxamed iyo booliisku waxay ka wada shaqeeyeen sidii loogu heli lahaa cadeymo ku filan Dahlia DiPolito oo cadeynaysa inay rabto inay ninkeeda disho waxaa maxamed loo sheegay inuu dib u waco ex-tiisii hore Dahlia DiPolito una sheego inuu helay qofkii u dili lahaa ninkeeda ayna kula kulanto meel gas station ah horena ay u soo qaado $200 oo lagu soo iibiyo bastooladii ninkeeda lagu dili lahaa iyo sawirkiisaba intaasi kadib Dahlia waxay timid gas stationkii waxay keentay sawirkii ninkeeda iyo $200 oo kaasha wixii markaasi ka dambeeyay booliisku waxa uu cadaatay inay Dahlia DiPolito ay rabto inay disho ninkeeda laakiin weli waxay rabaan inay helaan cadeymo kale oo ka badan 2 maalin kadib Maxamed Xijaaz waxa uu dib u wacay Dahlia DiPolito waxa uu sheegay in mar kale ay gas station kula kulanto ninkii u dili lahaa ninkeeda ninkaas oo ah officer Bilik oo ka tirsan booliiska si ay ugu wada hadlaan lacagii ninkeeda lagu dili lahaa iyo waqtiga faraaqada uu leeyahay guriga si ay u fududaato in ninkeeda loo dilo dan Dahlia DiPolito waxay timid gaariga waxaa loogu xiray kaamirad waxay ayadii officer Bilik wada hadlayeen muddo ku dhow 30 daqiiqo waxaa laga wada hadlay lacagtii lagu dili lahaa ninkeeda iyo guriga xilliga uu firaaqada leeyahay oo ay fududahay in ninkeeda la dilo waxyaabaha cajiibka leh oo ka dhacay waxay ahayd inuu officer Bilik ugu celiyay ma hubtaa inaad rabtid inaad ninkaada dishid yacni hadhow markaan mishinka guda galo ama guriga aan tago amaad isbedeshaa amaad booliiska igu dirtaa yacni amaad isbedeshaa waxay tiri 100% waan hubaa inaan ninkayga dilo There's no changing, no, there's no like determinant already. I'm positive, like 5,000% sure. sidoo kale waxaa lagu heshiiyey lacag dhan $7,000 sidoo kale Dahlia DiPolito waxa ay sheegtay inuu guriga faraaqi yahay inta u dhaxaysa subaxdii 12 ilaa 7 barka xilligaasna ayada ay aado gym gurigana ay ka tagi doonto albaabka furan ayna u fududahay inay ninkeeda disho kadib intii lagu heshiiyey waana la kala tagay intaasi kadib booliisku waxay go'aan ku gaareen in case-ka lagu soo daro ninkeeda ama loo sheego wax socda yacni inta hore dhan ninkeeda kama warqabin hadda booliisku waxay go'aan ku gaareen in ninkeeda loo sheego waxyaabaha socda ama investigationka booliisku ay wadaan waxaa la xiriiray Michael DiPolito waxaa loo sheegay in xaaskiisa ay rabto inay disho waxaa loo daaray muuqaalkii laga duubay intay gaariga saarneed oo heshiiskii iyo lacagtii iyo waxyaabihii waqtiga uu guriga faraaqada leeyahay ay ka hadlaysay waxaa laga codsaday Michael DiPolito in beri gurigiisa la yimaado subaxii intii u dhaxayso 12 ilaa 7 barka qof booliisa uu yimaado xabada feegana laga rido loona ekaysiyo
in asaga la dilo intaas kadib Michael DiPolito waa u ogolaaday sidii ayaana lagu heshiiyey maalinkaas maalinkii ku xigay Dalia DiPolito subaxii waxay iska aaday jimkeeda booliisku waxay tageen guriga Michael DiPolito waxa xabada feega laga riday guriga intaas kadib booliisku waxay waceen Dalia DiPolito oo ku sugan jimka waxaa loo sheegay in ninkeeda la dilay si dhaqsi ah ay guriga ku timaado way soo carartay guriga ayay timid markay guriga timid reactionkeeda ama markii loo sheegay in ninkeeda la dilay kadib reactionkeeda wuxuu ahaa sida tan DiPolito, I'm Sergeant Ramsey. I'm the one that called you. Thank you for coming. I'm sorry to call you. Listen, we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, man. He's been killed. He's been killed, man. فلا تأمنها آمن لأنثى ناك قد ولقى يوما ولقى ناك هكول صونان ولو قالت هبا كنت نزلت من السماء سماء كسر دقيقة هكول هذا ولقى آمن هيه أندواي intaasi kadib booliisku waxa ay ka xayeen Dalia DiPolito waxa la geeyay police station-ka ayadoo la weydiinay dhowr su'aalood haddii uu ninkeeda leeyahay wax cadow ah haddii ay wax ka ogtahay qof u hanjabay ninkeeda laakiin waxay iska dhigtay qof aan waxba ogeyn ugu dambeyn waxaa la soo hor istaajiyay ninkeedii waxaa loo daaray muuqaalkii ay ku qiranaysay inay rabto inay ninkeeda disho lacagtii ay ku heshiinaysay guriga xilliga ay ballaminaysay wixii dhan ayaa loo daaray markii sheekadu intaasi marayso Dalia DiPolito waxay iska soo jartay in waxaasi oo dhan ay u sameysay inay noqoto famous wax walbana ay ogeyd booliiska xataa ay ogeyd inay investigation hayaan si ay caan u noqoto ayayna sidaasi u sameysay yacni sida ay sheegtay ugu dambeyntii Dalia DiPolito maxkamad ayaa la soo taagay dhowr jeer ay isku dayday inay rafcaan qaadato ugu dambeyntii waxaa lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah intaas ayaan jeclaystay inaan idin la wadaago haddii aad muuqaalka ka heshay fadlan noo like garay sidoo kale noo share garay oo asxaabtaada gaarsii haddii aadan nagu soo birin maxaad sugaysaa nagu soo bir sababtoo waa lacag la'aan sidaan hore idinku sheegay haddii aad jeceshahay inaad daawatid muuqaaladan oo kale oo gaagaaban waxaad ka heli kartaa bartayda TikTok-ga linkiga waxaan ku dhigay qaybta description-ka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh